saadaasha Paul Merson ee kulamada Premier League ee isbuucan la ciyaari doono. Halyeyga Arsenal Paul Merson ayaa sameeyay saadaashiisa kulamada Premier League ee toddobaadka saddexaad. Sabtida Chelsea ayaa Stamford Bridge ku martigelin doonta Fulham ciyaarta ugu horeysa, halka Manchester United ay Old Trafford ku qaabili doonto Burnley. Axadda indhaha oo dhan waxay ku jeedaan Anfield, halkaas oo Liverpool iyo Arsenal ay isku farasaari doonaan, iyadoo Brighton ay la ciyaari doonto Manchester City. Habeenkaas Aston Villa ayaa garoonkeeda ku martigelin doonta Crystal Palace. Merson isagoo la hadlayay Sky Sports wuxuu saadaashiisa u dhigay sida tan: Chelsea waxay 2-1 kaga badin doontaa Fulham, Wolvesna waxay barbara 1-1 la gali doontaa Everton, Tottenham Hotspur waxay 2-1 kaga badin doontaa Bournemouth, halka Manchester United ay 3-1 kaga tilaabsan doonto Burnley. Sunderland waxaa gurigeeda 1-1 kaga badin doontaa kooxda Brentford. Leeds Unitedna waxay barbara 1-1 la gali doontaa Newcastle United. Manchester City waxay barbara 1-1 la gali doontaa kooxda Brighton. Nottingham Forestna waxay 2-1 kaga badin doontaa kooxda West Ham United. Kulanka ugu weyn ee Liverpool iyo Arsenal waxa uu ku dhamaan doonaa barbara 1-1, halka kulanka ugu dambeeya ee Aston Villa iyo Crystal Palace uu ku dhamaan doono barbara 1-1. Saadaasha Paul Merson ayaa muujinaysa in Man United oo koox heerka afraad ka ciyaarta ay ka soo reebtay tartanka League Cup-ka ay si raaxo leh ugu adkaan doonto kooxda Burnley, halka kulanka weyn ee Liverpool iyo Arsenal uu barbaro ku dhamaan doono. Warbixintana waxay qayb ka ahayd barnaamijkeenii bandhiga ciyaaraha oo aan maanta ugu hadlayay saadaasha Paul Merson oo ah khabiirka faalooda ciyaaraha horyaalka Premier League ee dalkan Ingiriiska. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.